waxaan kuu nuglaynayaa inay ishu ku gasho ama sixirku ku haleelana marka ilaahay kitaabkiisii baa haysataan sunnihii nebiga waan haysanaa war saddex shay ku dadaala ummadihay saddex shay ku dadaala haddaad saddexdaa shay ku dadaashaan waxaan waxba idinka guri maayaan ina kayda shayطaani kaana daciifan shirqoolka ibliisku wuu sahlan yahay waa daciif kaydka dumarkaa ka culays badan ina kayda kunna cadiim waxaad yeeshaan baaraka allaahu fiikum war weysada ku dadaala weysada ku dadaala waxay odhan jireen dadkii hore saalixiinta ahaa alwuduu silaaxu lmu'min weysadu waa hubka mu'minka wallahu yuxibu lmutahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay dadka tahaaradana dee weysadii baa awal ka ah weysada markaa weysaysataan wax allaaliya wixii dunuub sakaa'irah ee la sameeyey baa kaa daadanaysa taad indhaha ku aragtay sakiiraad way daadan taad gacmaha ku qabatay sakiiraa way daadan taad lugaha ugu dhaqaaqday dhibicda ugu dambaysay raaci waxaan kuu nuglaynayaa inay ishu ku gasho ama sixirku ku haleelana waa min kasbina wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir haddaad weysaysato maxaanku idhaha dunuubtii sakaa'irtaydoo dhan ay maydhanto waxaa ku weheshanaya malaa'igta markaad dikriga ilaahay laasimto kuuma soo dhowaanayo dikriga ilaahay ha la laasimo kuuma soo dhowaanayaan qofka bini'aadmiga dikriga ilaahay aan laasimin ayaa shaydaanku ku xidhmaa waman yacshu can dikri araxmaani nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin qofku hadduu dikriga ilaahay uu iska daayo markaasaa lagu sidkaa ibliiska war dikriga ilaahay miisaankuu inoo gelayaa dikriga ilaahay ha la laasimo aladiina aamanuu wataطma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi taطma'inu alquluub qalbi xasiloon oo aan cabsanayn ibliis waxbaba kama qaado xadiidkii saxiixa ahaa waa idinka wada garanaya ruuxu markuu gurigiisa ka soo baxo haddii uu yidhaahdo bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah waa saddexdaa eray bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah faqad hudiita wa kufiita wa wuqiita faqad hudiita wa kufiita wa wuqiika saddexdaasay malaa'igtu ku tidhaahdaa markaad gurigaaga ka soo baxaysa intaa haddaad ku akhrisato hadhow hadduu ibliis xadhig marani uu damco inuu wax ku yeeleeyo kuwii kula socday ee kuu maaro waayey ayaa la hadlaya oo odhanaya maxaad ka guri kartaa ruux xagga rabbi laga ilaaliyey oo laga xifdiyey oo la maanacay maxaad ka qaadi kartaa sidaasaad gurigaagii adoo badqaba aad ugu soo hooyanaysaa war dad yahow waxaa ku dadaashaan sadaqada ku dadaala asadaqa tudfi'u qadaba araxmaan sadaqadu waxay bakhtisaa cadhada ilaahay dhibta ku gaadhaysaana waxay ku timaaddaa cadhada ilaahay hadday dhibi kugu dhacdo waa bimaa kasabad yadag waxaase laakiin bakhtiinaya waa sadaqada asadaqa tudfi'u qadaba araxmaan daawuu mardaakum bisadaqa xadiidkii xasanka ahaa ee abaa hurayra warinayay war sadaqada ku dadaala oo dikriga ilaahay ku dadaala oo haddii ilaahay ka dhigo weysada ku dadaala waxaan wax loo dhiga lahayn oo ina anfici doono fi اddunya waalaakhira salaadda subax iyo jamaceeda qofka salaadda subax jamaca ku tukada fahuwa fii dimmati illaahi tabaaraka wa tacaala fahuwa fii dimmati illaah ruuxa salaadda subax wakhtigeeda tukada wuxuu gelayaa ilaahay magantiisuu gelayaa ruux ilaahay magan geliyeyna wuxuu soo gudbi karaa ma jiraan baaraka allahu fiikum war waxani waa saqiir waana daciif waana mahiin weeye shaydaanku kaydkiisuna waa daciif innagunbuu daciifnimo inaga helay mooyaane ruuxu hadduu ilaahay ku xidhmo oo dardaarankaa aan idin siiya aa qaadataan
ولا رشية إذنان أباهنين ولا بنا آدم كلا إذنان أباهنين ولا جنبا وحبا إذن دمين ولا إلبا وحبا إذن كقاضين إلهي حسني سقاطا إلهي نفيسكي سأونقلا